wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Maxamed Sheekh ayaa maanta daahfurtay shirka wada tashiga qorshaha horumarinta biyaha qaranka ee wasaaradaha biyaha heer federaal iyo heer goboleed kaasoo hordhac u ah shirweynaha qorshaha horumarinta biyaha waxaana uu socon doonaa muddo 3 cisho ah. shirkan ayaa intuu socdo xoog lagu saari doonaa qodobo la xiriira sidii la iska kaashan lahaa horumarinta biyaha si looga faa'iideeyo bulshada Soomaaliyeed. agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiwaaxid Ibraahim Axmed ayaa ka hadlay la tashidan iyo siyaasadda biyaha oo lagu maareynayo fatahaadaha iyo abaaraha soo laabtay ee dalka ka dhaca iyo sidoo kale waxyaabo kale oo qoseeya horumarinta biyaha dalka. siyaasadda dalka oo dhan ay saartay mudnaanta koowaad in dalka kan dhibaatada faraha badan ee soo maraysa haday naqan lahayd fatahaadaha haday naqan lahayd abaaraha soo noqonaya in loo helo xal waara oo joogto ah si marka kaasi ummaddan shacabka ahi ee dhibaatooyinkaasi dareemaysa looga badbaadin lahaa. waxa jira khabiir oo tiimka istaraatiijiyadda qoraya uu hogaaminayo Dr. Khaldoon waxa inala jooga khabiir kale oo marka kaas wasaaradda u ah la taliye oo Dr. Kalas runtii labadoodii ay maaragtay aad iyo aad talooyin fara badan iyo hoggaan fara badan oo qurux badan ay ka gaarsiiyeen. wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Maxamed Sheekh ayaa sheegtay in shirkan uu daba socdo shirar ka horeeyay oo lafdhabar u ah siyaasadda biyaha iyo sida dalka loo gaarsiin lahaa biyo nadiif ah. waxaan idinku dhiirigelinayaa inaan si joogto ah taageeradiina aan u baahannahay hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan hadda qabanqaabinaynaa 5 workshop oo lagu tagi doono hadduu Ilaahay yiraahdo gobol kasto oo ku tagi doono taasoo aan rabno gobol kasto inuu ka qayb qaato qorshaha biyaha aysan ahayn kaliya meel qaas waa Soomaaliya oo dhan gobolada Soomaaliya oo dhan workshop aan u diyaarinay in ay ka qayb qaadan doonaan consultation-ka wax tarna oo ka soo bixi doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho.